السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وناكسنا أصحابي ميل كستود نغا داوانيسان haddaba qodobada barnaamijkan idinkugu hayno waxaa ka mid ah Iiraan oo faahfaahin ka bixisay sida uu dagaalka u dhacay iyo hadda xaaladdu halka ay marayso. Israa'iil oo iyaduna ka warbixisay weeraradii dhacay iyo sida ay wax yihiin. Mareykanka doorka uu ku lahaa dagaalkaas inuu ka qayb galay iyo in kale. xaaladdu se hadda halkay joogtaa, dagaalku ma socdaa mise wuu hakaday. waxaa sidoo kale barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa falcelinta ka timid dowladaha waaweyn ee caalamka ee ku saabsan dagaalkii dhacay. haddaba xaalku waa sidee, halkee labada dhinac ay iska duqeeyeen, xootigu hawshiisu halkee maraysaa, dhammaan wararkii ugu dambeeyey ay warbaahintu ka qoreen sheekadan ayaynu barnaamijkan ku soo gudbin doonaa. xaaladda dagaalkii dhacay ayaynu gebi ahaan barnaamijka ku faahfaahinaynaa. haddaba marka hore waxaynu ka hormaraynaa Iiraan. waxaynu u kala saari doonaa wararka Iiraan iyo wararka Israa'iil, wararka Mareykanka iyo wararka falcelinta caalamka iyo xaalka hadda aan idinla hadlayo meesha uu taagan yahay. sidaasaan barnaamijka u kala habayn doonaa. haddaba marka hore waxaynu ka hormaraynaa warbixinada dhanka Iiraan ka yimid. haddaba waxaa war soo saaray goordhaweyd xafiiska la yiraahdo Khaatimul Anbiyaa ee ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan hoostaga. waxa uu sheegay inay Iiraan bartilmaameedsatay saldhigyo iyo goobo xasaasi ah oo Israa'iil gudaheeda ku yaala. wuxuuna sheegay cadowga inay dusha u saariyeen khasaaro aad u weyn oo aanu muddooyinkan ka soo kaban karin. afhayeenka xafiiska la yiraahdo maqar Khaatimul Anbiyaa ayaa wuxuu sheegay in khasaaro xoog leh ay u geysteen dagaalkii dhex maray saacadihii lasoo dhaafay Iiraan iyo Israa'iil. qaybtaasu marka Iiraan waxay leedahay nimankii waxaan dusha u saarinay waxaysan muddooyinkan ka soo kabanay. marka maxay isticmaashay Iiraan duqaymihii ay xalay ilaa saaka Israa'iil saldhigyo iyo goobo muhiima ku baabi'isay maxay u adeegsatay, gantaalaha noocee? haddaba waan idin tusinayaa wararkii ugu dambeeyey. Iiraan waxay tiri waxaynu isticmaalnay 3 nooc oo ka mid ah sawaariikhdeenna oo weerarkaasi aanu ku fulinay. wakaaladda wararka ee la yiraahdo Faris ee Iiraan laga leeyahay ayaa sheegtay in Iiraan ay isticmaashay 3 nooc oo ka mid ah sawaariikhdeeda, kuwaasoo lagu magacaabo Cimaad iyo Qadar iyo Khaybar, inay markaa u isticmaashay dagaalkii cuslaa ee xalay isaakay ay isticmaashay. Cimaad iyo Qadar iyo Khaybar alaabta jugta culusa la yiraahdaa, inkastoo weli laba kale ay dhiman tahay oo laba cajiib ah dhiman, laakiin kuwan laftirkoodu waa kuwa halista badan kuwa ku soo xiga waaye. weli kuwa halista badan laguma ridin ogow, baashu Ameerikaana lala sugayaa iyo alaab kale. marka kuwan intaas isaga filanba marka heerkaasa marka la isla gaaray. nimankii saasaan u garaacnay yidhaahdeen 3 gantaalna noocyadooda kala duwan. annagu waxay yidhahdeen inaan baqayno inoo malayaan ogow, inaan Maraykanka baqayno inoo malayaan. haddii Lubnaan ay iska weerarto waa laga aamusayaa, Lubnaan ay iska weeraray waa lagaaga aamusayaa. heshiiskay ku jirtay xabad joojinta in Lubnaan xabadda laga joojiyo, waa diideen soo maaha. intaasaan dul qaadanayna wax ka qabanaa male, xooga wax uga qabanayna. mar kale waa kaasi Beirut ku laabtay dheh haddaan dhulka idinla jarin. warkooda marka waa cad yahay nimanka Iiraaniyiinta. marka Iiraan hadda waray soo saartay. marka intaanan barnaamijka soo gelin ka hor war degdega ayay soo saareen. haddaba marka warkan aan aragno waa warkii ugu dambeeyey Iiraan si rasmi ah u soo saartay. Al Jazeera waxay leedahay Iiraan waxay ku dhawaaqday inay joojisay howlgalladii. xafiiska Khaatimul Anbiyaa waxa uu sheegay howlgalladii militariga inay hadda Iiraan dhankeeda joojisay, laakiin haddii ay sii socdaan gardarrada lagu qaadayo Lubnaan, gaar ahaan koonfurta Lubnaan, in ay midani noqon doonto iqarso. haddii
hadda waa joojineen cadaadis badan ay yimid adduunkii oo dhan wuxuu yiri xabadda hal la joojiyo waa joojinay nimanka si fiican ay joogto uga gelinay waa joojinay laakiin haddii ay ku noqoto Israa'iil Lubnaan mar kale haddii wixii ka dhaco waa la yaabaydeen way ka adkaan doontaa sida hadda aan u garaacnay marka wararkaas waxay ahaayeen marka kuwii ka soo baxay dhanka Iiraan warkeedii meeshay wax mariyeen gantaalahay isticmaaleen ilaa hadda oo ay joojiyeen hawlgalladii ayaanu soo aragnay Israa'iil ayaduna dhankeeda galaynaa haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay warar laga helay dhanka Israa'iiliyiinta waxay sheegayaan in weerarada Iiraan lagu qaaday ay markaa Israa'iil kaliya ay ahayd laakiin warbaahinta Israa'iil waxay xaqiijiyeen in Washington ay ka qayb qaadatay difaacidda gantaalihii Iiraan ay soo ridaysay inay markaa Washington ay ka qayb qaadatay oo laakiin dagaalka tooska ah iyadoo aanay gelin oo aanay ka qayb qaadanin mawjida waxay yiraahdeen dhowr meelood oo muhiim ah duqaynay Tahraan iyo Asafahan iyo magaalooyin kale goobaha aan duqaynay waxay ahaayeen dhamaantood meelo militarigu isticmaalayay waxay ahaayeen meelo gantaalaha hawada lagula dagaalamo ay yaaleen iyo gantaalaha kale ee weerarka marka annagu meelahaas si wanaagsan aan u duqaynay haye waxaan isticmaalnay leeyahayna gantaalaha plastiga ah ayaan halkaa ku isticmaalnay intaas markay joogto marka waxay yiraahdeen Mareykanka dagaalkana lama gelin laakiin Mareykanka wuu difaacay macnaha asagu dagaalka ma gelin laakiin gantaalka Iiraan soo ridana wuu difaacay macnaheedu maxay dagaal ma gelin iyo dagaalka waa ku jira maxay tahay teamka hadii kubadda la ciyaarayo garoonka la galo ninna waa gool dhaliya waa weerar ninna waa difaac isku team isku koox isku ujeedo way marka kulaha Mareykan waa difaac waana difaacaya dagaalka kuma jiro oo amcudi difaacaya duusa dagaalka ku jirin waa sheekay yaable marka hadda iyaguna waray soo saareen marka Iiraan soo hadda war ma soo saarin ayaguna hadda waray soo saareen marka aan idin tuso Israa'iil marka waxay leedahay warkii ugu dambeeyay wargeyska la yiraahdo Israa'iil Huyum wuxuu leeyahay isagoo soo xiganaya mas'uuliyiin Israa'iiliyiin ah ma jiri doono wax weerar dheeraad ah oo markaa Iiraan lagu qaado haddaanay Iiraan iyadu soo ridin gantaalo cusub ama weerar cusub aysan soo qaadin waaye marka maxay leeyihiin annagu weerar dambe ma qaadayno sida Iiraan ba ay u lahayd laakiin Iiraan hadday weerar kala soo qaado waa tagayna maartay annaguna waa ku laabanayna laakiin mushkiladda marka meesha ka jirta waxay tahay warbaahinta Israa'iil sidoo kale waxay soo xiganayaan saraakiil Israa'iiliyiin oo uu ku jiro abaanduulaha ciidanka waxay leeyihiin annagu mana lagu cabsiin karo Lubnaan hadda weerartaan waa la soo weerara Lubnaan xilliga rabnaa weerarayna Iiraan waxa leedahay carwa kaas weerarada marka meeshaasu xaalka halkaas marka waxa leeyahay wuu ka qasan yahay oo maartay xaalad aad u qasan ayaa halkaa ka jirta marka Mareykanka ayaan galaynaa marka Iiraan waa soo aragnay Israa'iil waa soo aragnay meesha ay hadda wax kala marayaan ay joogaan Mareykanow adiga sidee xaalkaagu yahay difaac ma ahanaysa difaaci ma ku jiraysa marka aan idin tuso wargeyska la yiraahdo Axios ee Mareykanka laga leeyahay ayaa laga soo xigtay warbixin uu leeyahay Washington ma ogolaanin weerarkii Israa'iil ay ku qaaday Iiraan haddaba dhanka kale waxa la sheegayaa inaysan Washington marnaba aqbalin in weerar lagu qaado Iiraan Netanyahuna waa la gaarsiiyay laakiin Netanyahu waxa la sheegay in uu markaa diiday dalabkii Trump ee ahaa inaanu ka jawaabin weeraradii Iiraan ay markaa ku soo qaaday waxay leeyihiin annagu maartay wax fasaxa ma bixin in Israa'iil weerarto Iiraan bal wuu diiday Trump Netanyahu si wuu diiday Trump ha weerarno yiri Netanyahu wuxuu ornaa waa weerarayay warkaas meeshaas marka marta
marka warkayga waa diiday anigana ma fasaxin laakiin waa difaacaya adi meel u dhig ninkan warkaaga hadduu diiday waxaan ha samaynaa tiri uu sameeyo dee ma ku difaacaya inaad tiraa soo ma ahayn sida xaqiiqda ah laakiin waxaasoo dhan uu sameeyey soo ma aha haddana iiraan markay gantaal soo rida difaacan ka qaybgala gantaaleyga difaaca ayaan iiraan ka horgeynaa marka waxaasoo dhan waxay leeyihiin waa ruwaayad labadoodu waa is ogyihiin wax kasta meeshaan yaa wax kasta laydii sheegi adduunka yaa la sirin ani kuma jiro iyo ani waa ku jira inaan ku jiro soo wax u difaaca waa sax ma ogtahay marka arrintaas adikuna marka halkaas mara waayahay Trump marka hadda war soo saaray ninkii Trump ahaa ayaa isaguna goordhow war soo saaray haddaba marka aan idin tuso Trump wuxuu yidhi Israa'iil iyo Iiraan waxaa qasab ku ah inay xabadda joojiyaan sida ugu dhaqsiyaha badan haddaba wuxuu ku soo qoray boggiisa la yidhaahdo Truth Social in markaa Israa'iil iyo Iiraan sida ugu dhaqsiyaha badan ay dagaalka u joojiyaan oo markaa ay meesha ku joojiyaan wixii kala gaaray waa kala gaareen joojiya dagaalka joojiyadiisu marka xisaab maba ku jirtaba Iiraan waxay tiri annaga waa joojiyay laakiin Israa'iil hadday ku laabato Lubnaan waa ku laabanaynaa hawshan Israa'iil waxay tiri waa joojiyay laakiin cid naga hor istaagi karta male Lubnaan inaan duqayno marka ma jug meeshaadii joogaan lahaa xilli kastay marka qarxi kartaa waxayna ku xiran tahay Israa'iil oo weerarta halkan Lubnaan weerarta marka sheekadu halkaasay maraysaa marka ilaa maantay maxaa socda hawadii weli waa joojinay dagaalkay dheen laakiin hawadii dawladaha dhan way xirmatay oo dagaalka ku lugta leh dawlado kalena waxay diyaarado ahaa dul maraya haddaan idin tuso sawirka hadda Al Jazeera ka soo qaaday oo hawada dusheeda diyaaradihii rakaabka ahaasay u noqdeen wayaabasa haddaba markaan idin tuso warbixin kooban oo laga diyaariyay sheekadan haddaba khariidada dhanka hawada duulimaadyada muujinaysa waxay sheegtay in xaalad ay aad u duwan tahay haddaba dhanka waxaa la sheegay Suuriya iyo Ciraaq iyo Iiraan hawadooda ilaanay jirin wax diyaarada oo dul maraya marka dhanka kale la fiiriyo wixii diyaarada ahaa oo dhan waxay isugu tageen hawada Masar iyo Sacuudiga ayay waxay u buux dhaafiyeen si aan hore loo arag wixii diyaaradaha oo halkaa ka soo cararay oo dhan halkaasay soo marayaan dhanka kale Tel Aviv iyaduna wax dul maraya male ilaa Tahraan dhulkaasoo dhan marka halkaasay marka iyaduna xaajadu maraysaa marka ma arkaysaa khasaaraha marka halkaasuu joogaa haddaba marka qadar xayisiisa kadib waxaan eegaynaa bal wixii akhbaara ee soo dhacay intaynu barnaamijka ku jirnay haddaba qaybtan waxaynu ku soo qaadanaynaa dawlado waaweyn ayaa ugu baaqay Iiraan iyo Israa'iil inay joojiyaan dagaalka oo xaaladda ay dejiyaan ra'iisul wasaaraha Britain madaxweynaha Faransiiska iyo mas'uuliyiin kala duwan ayaa iyagu markaa waxay ugu baaqeen dhinacyada inay dagaalka joojiyaan haddaba dhanka kale ma jiro Iiraan weeraro ay ku qaaday dhanka dawladaha khaliijka wax weerara kuma qaadin sababtu marka maxay tahay Mareykanka ma weerarin Mareykanka meesha degan laakiin Israa'iil iyo Iiraan hadda hawsha ka dhaxaysa dhanka kale Xuutiga iyaguna gantaalo ayay ku weerareen Israa'iil laakiin Israa'iil waxay sheegtay laba kamida inay ahaayeen gantaalo halis badan mid ay qabteen mid ka kalena ay qaban waayeen xaguu aad marka waa xarooday meel u jiro laba yaqaano kaas waa adeegtay marka wararkaas ayaa ugu waaweynaa wararkii soo kordhay haddii alla idmo wixii kaloo warara ku soo kordha xaaladan barnaamijyadeeda dambe ayaan idinkula socodsiinayaa like gareeya oo share gareeya barnaamijka asxaabay meel kastoo aad naga daawanaysaan inta aan mar kale kulmayno haddii alla idmo waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhawaada tabin aan ku eegi doono xiisada hadda ka taagan gobolka bariga dhexe waxay caawa samaysay dowladda Iiraan sida loo duqeeyo nidaamka Israa'iil war ka soo baxay Trump iyo qodobo kale haddaba caawa sidee wax u dhaceen dowladda jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iiraan maalmihii ugu dambeysay waxa ay soo saaraysay digniin waxay lahayd haddii duqeynta laga joojin waayo dhulka koonfurta Lebanon iyo ururka xisbiga waxaan samayn doonaa tallaabo kasta oo lagu burburinayo nidaamka Israa'iil
caawa war ayaa soo baxay isla markiiba digniintii ka soo baxday dowladda Iran waxay duqeyn ku qaadeen waqooyiga dhulka la haysta ee Falastiiniyiinta ee gacanta Israa'iil ku jira intaasi markay dhaceen kadib waxa soo baxaya warar la xiriira digniino kala duwan oo xoog leh iyo waliba Trump oo caawa nabad raadinaya oo dhahaya nidaamka Israa'iil ma sameynayaan wax duqeyna ninkii Netanyahu aniga ayaa la hadlay dowladda Iran hays xakamayso gogosha wada xaajoodka nabadda yaani burburin gobolka bariga dhexe dagaal wuxuu yahay waan soo aragnay oo odaga taagan yahay caawa iska dhaafal warbaahin inuu la hadlay warbaahintii oo dhan ee Mareykanka ayuu wacaya haddii ay noqon lahayd Axios haddii ay noqon lahaa telefishinka Focus News ee saaxiibka uu leeyahay Netanyahu isna waxa uu leeyahay waan aarsanayaa Israa'iil maaha cid meel loo qabto oo gacmaha laga qaban karo Iran waxay ka digtay weerar badan oo burburin doona dhanka Israa'iil waxana ay tilmaantay taageerayaasheedu in ay si diyaar garoobaan oo ay dagaalka qayb ka noqdaan haddii xiisadu ballaarato isla wararkaasi haddii aan eego waxaa soo baxaya hawada wadanka Ciraaq qaybo ka mid ah wadanka Syria iyo waliba koonfurta wadanka Lebanon aan ilaahay wadanka Iran caawa albaabada ayaa loo xiray oo muddo 12 saacadood ma jiraan wax diyaarado ah oo duuli karaya waxa sidoo kale eegaya Iran oo hadda lagu soo war Iran oo gantaalaheedu ay leeyihiin wali hawsha ma dhamaan iyo taliyaha qaybta difaaca diyaaradaha iyo waliba gantaalaha ayaa isna war soo saaray waxa uu leeyahay hawsha waxba kama dhawa haddii aan la joojin duqeymaha Lebanon ka soconayana annana dagaalka ma joojin doono caawa dowladda jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran ayaa si aan kala sooc lahayn waxay mar kaliya u bilowday duqeymo xoog leh oo 3 raac oo isxiga ah raaca koowaad raaca labaad iyo raaca saddexaad kaasi oo dhammaantoodba lagu garaacay qaybo ka mid ah dhulka la haysto ee Falastiiniyiinta warada ayaa waxa qaado ciidamada loo yaqaano ciidamada hawada sare ama waxa loo yaqaan geofadaiga oo inta badan si gaar ah gacanta ugu haya gantaalaha iyo waliba diyaaradaha iswada ee droneska loo yaqaano meelaha sida aadka loo garaacay waxa kamid ah waqooyiga dhulka la haysta ee Falastiiniyiinta intaan weerarka dhacin horta maxaa dhacay intaan weerarka dhacin caawa 3 mas'uul oo kala duwan oo dowladda Iran oo xilal sarahaya ayaa hadlay ninka la yiraahdo Mohammed Baqir Ghalibaf oo afhayeenka baarlamaanka ah isla markaana malafka wada hadalka iyo wada xaajoodka gacanta ku haya ninkaasi war ayuu soo saaray waxa uu yiri dowladda Mareykanka iyo nidaamka Israa'iil labadaba waxa ay dab ku qabteen miiska wada xaajoodka sida daraadeed xabad joojintii waa burburtay weerarada iyo dagaalada ka soconaya aagga loo yaqaan Daahiya al-Januubiya oo koonfurta Lebanon ah waxa ay noqdeen annana inaan ka baxna xabad joojintii sida daraadeed wixii hadda ka dambeeya waxa hadaf ama bartilmaameed sharciya noo noqday daraha Mareykanka ee gobolka bariga dhexe iyo waliba nidaamka Israa'iil sidoo kale hadalkaasi mid lamid ah waxa jeediyay Ali Akbar walaayati ninka la yiraahdo oo ah la taliyaha sare dowladda Iran xafiiska hogaamiyaha ugu sareeya Khamenei iyo waliba madaxweynaha wadanka Iran Mas'uud Pezeshkian dhammaantood luqadda ay ku wada hadleen waxay ahayd luqad dagaal kadibna waxa dhacayba kulamo degdega in la qabto oo dhinacyadu ay ka fakaraan bal sida xaaladdu ay noqon karayso dowladda Iran ayaa mar kaliya laga war helay iyadoo garaacaysa qaybo kamid ah waqooyiga dhulka la haysta ee Falastiiniyiinta inta markay dhacaan kadib dafcadii koowaad oo weerarka ayaa la qaaday ciidamada Israa'iil waxay ku baraarugeen duqeyn adag oo ku socota iyo dagaalada sidii u xoogeysanayaan iyo waliba gantaalaha dowladda Iran ay caawa ku garaacaysa halkaasi in ay yihiin kuwa aan sahlanayn oo aad u xoogan isla markii baraaruga markii uu bilowday raaci labaad ee gantaalaha ayaa goobtii gaaray iyana duqeymihii waa cuslaadeen isla markii Israa'iil warbaahinteeda ayaa ku dhawaaqday duqeyna bilaabatay weerar culus socda shaadana halka la yiraahdo ayaa la duqeynaya warkaas markii uu bilowdo kadib oo dadka la amray goobaha inay ku laabtaan raac kale oo gantaalo ah ayaa haddana hawada soo galay kadib waxa la bilaabay nidaamyada difaaca hawada in kor loo qaado oo Israa'iil ay habba dhinac u ordo oo difaaca ay ku aruurto
si kooban ay u joojiso weeraradii ka soconaya wadanka Lebanon oo iyadu ay Koblayurar noqoto oo ay bilowdo bal inay iska badbaadiso waxa ku dhacaya iyo xaaladdu sida ay tahay inta markay dhacaan kadib wasiirka arrimaha amniga Israa'iil ninka mayalka adag ee midigta fog jira ee la yiraahdo Itamar Ben-Gvir ayaa hadlay waxa uu leeyahay xaaladan waxay noqonaysaa mid habeen dheer u noqon doonta Iran annaga ma joogsan doono Israa'iil looma soo dhawaado odaga afka u furtay waxa uu leeyahay marka waan aarsanaynaa isla markiiba ra'iisul wasaaraha Israa'iil hadlay waxa uu leeyahay waan ka jawaabi doonaa inana waan aarsan doonaa meel ma fadhin doono Iran waan naqaanaa waxa ku dhacaya dood saas u adag oo culus ayuu isna banaanka keenay inta markay dhacaan kadib wasiirka amuraha dibadda ee wadanka Iran ninka la yiraahdo Abbas Araghchi ayaa bartiisa X calamada wadamada Iran iyo waliba calanka Lebanon ayuu isku soo barbar taagay oo soo dhajiyay korna waxa uu soo qoray wax u dhigmaya wadamada lama galan goyn karo waxa uu leeyahay jacaylka noo dhaxaysa birna ma goysa biyana ma mayraan waxa ay Soomaalida dhihi jireen oo kale ayuu meesha soo dhigay oo waxa uu leeyahay hadii goodinteena iyo digniinaha aan bixinayna ay ahaayeen kuwa aan macno lahayn bal caawa kaasa Israa'iil ha ka xaabiso waxay ka heshaa ka qaadato waliba war ka soo baxay taliyaha qaybta gantaalaha sare iyo waliba diyaaradaha iswada oo hadlay oo taliska kacaanka Iran ka tirsan waxa uu leeyahay hawshan waa sida u bilaabatay maalintii jug lagu siiyo wadanka Lebanon annagana jug ayaan ku siin doonaa gantaalaheena Israa'iil marka hadii ay kaliya taqaano qaniyo ka fujiso de rag baan nahay oo isba dhaafi doono oo tilaabooyinkeeda ha sii balaariso annana waan samayn doonaa duqeymaha inaan joojino inaan sii wadno aan la joojin inta markay dhacaan kadib oo duqeymihii ay balaarteen ninkii hogaamiyaha ka ahaa Mareykanka Donald Trump ahaa oo ay ugu dambeysay hanjabi jiray telefoonada uu qaatay hadba waxa uu bilaabay inuu waco warbaahinta kala duwan The Fox News ayuu ku dhuftay waxa uu ku yiri weerarka ka soconaya dalka la yiraahdo Israa'iil ma aqbali doono xaaladdu waa adag tahay inkastoo Israa'iil waxay sameynaysaa aysan ahayn wax fiican oo Lebanon gantaana in lagu tuuraan ahayn waxa dagaalka Iran hadda waxay doori kartaa waa tuurtay fadlan waxaan ka codsanaynaa wada hadalkii gogashiin aanay ka bixin oo ay rag adkaysi la iska dhigtaan oo bulsho laabtaan saddex raac oo gantaalaan marka waa ku filan yihiin ka joojiya inta marka uu dhahay kadib isla markii haddana wuxuu telefoonka u qaatay Netanyahu u wacay iyadoo hanjabaya iyo Twitterka waxa lagu soo qorayay iyo wixii markuu arkay isna telefoonka u qaatay oo citaan oo la gaar wuxuu yiri jooji xabad joojin ayaan ku dhawaaqay ma jawaabi karaysid hadda wax weyn kuma gaarin marka bal adkayso intaas un baad garaacaysi adan ku celi waaye oo xarig lama sitaan ahaayo maalin walba Lebanon garaacaya bal sug hadegdegin inta markii uu soo sheegay telefoonka markii uu dameeyay Axios oo ku dhuftay majalladan afka dheer ee hadda gobolka bariga dhexe warbaahinta adduunka oo dhan ay ka xiganayaan isla markii waxa uu ku yiri waan u sheegay ninka la yiraahdo Netanyahu ma jirto xabad joojinta in laga baxo waxaan u sheegay inaanu gantaalo kala sii tuurin oo dagaalka uu joojiyo jawaab wax la yiraahdo uu san bixin aniga hawsha qaatay nimankan Iran la yiraahdo hawsha sa qaataan oo ha joojiyaan dagaalka caawa warkaasoo dhan ayay xiganaysaa warbaahinta gobolka bariga dhexe oo Trump ninkii ahaa marcad ayuu babinayaa wuxuu leeyahay warcolka joojiya waxay nabad dhaanto ma jiraan waa ninkii Iran weerari jiray oo waxa caawa nabad raadinaya oo hadba darbi caasha kalinayo dhaxaya hadii aan nabad la helin xal kale ma jiri karo marka doodiisa caawa Trump halkaas taagan tahay dawladda Iran waxaad mooday inay ka sii baaran degtaba waxa dhacay warbay soo saareen goor dhow waxa la yiri diyaaradihii mari jiray wadanka Syria diyaaradihii mari jiray dalka la yiraahdo Iraq diyaaradihii dul mari jiray koonfurta Lebanon muddo 12 saacadood wax duulimaad ma jiraan sabab la xiriira dagaalka ayaa laga hortagayaa inay waxyeello gaarsiiyaan dadka rayidka marka aagaasi caawa hawadaasi waxa laga baqayaa gantaalaha inay isku salaamaan hadaba su'aal baa taagan oo la isweydiinayo leeyahay ninka la yiraahdo Netanyahu Trump war ma ka dhageysan karaa oo ognahay Trump inuu hadalka Netanyahu dhageysanaya oo dagaalkii June 12 maalin soconay 2025 uu la galay fardo Isfahan Netanyahu uu duqeeyay dagaalkii 28 February Mareykanka Israa'iil uu la galay hadda marka Trump isagoo 3 jeer xabad joojin Lebanon uga dhawaaqay
waa ka Netanyahu dagaalka bilaabo oo waliba meesha la isku haystay oo aaga koonfureed loo yaqaan Daaxil Januubiya oo koonfurta Lubnaan ku yaala la dhahayo lama taaban karo hal laga joogo oo horena ay uga digtay dawladda Iran in halkaas loo dhawaado oo maanta duqeeyo Iran waa tan caawa tiri bal hadii anigaan baruur gacmaha ku haysta arag oo caawa la garaacayo Israa'iil haddaba su'aasha la isweydiinayo u socda waxay tahay Netanyahu ma aqbali doonaa soo jeedinta Trump inaanu jawaabin base waa jawaabi doonaa dhammaan arrimahan oo dhan waxay tusaale u noqonayaan cidda iskale gobolka bariga dhexe dagaal inay ka bilaawdaan iyo inaanay ka bilaaban dagaaladan waxay dhacayaan iyadoo Iran sidoo kale ay ku dhawaaqday caawa haddii aanan laga qaadin go'doominta dhinaca badda ee saaran xeebaha wadankeeda in aanay wixii caawa ka dambeeya aanay jirin cid ay u turayso dagaaladana ay socon doonaan dawladda Pakistan ayaa la kulmaysa waji gabax iyadoo Muhsin Naqvi ninka la yiraahdo ee wasiirkeeda amuraha gudaha ah oo ku sugan yahay magaalada Tehran ay Iran caawa duqeyntan bilowday xasaatee dawladda Pakistan wali waxay ku adkeysanaysaa wada xaajoodida in la adkeeyo qadar baa ordaysa oo dhinac kasta caawa wacaysa wasiirkeeda amuraha dibadda meel kasto kamid ah wacaya Israa'iilna caawa ma jiifan karayso oo iyada inta la garaaco difaaca gali jirtay caawa iyadii baa la garaacay marka waxa la yiri soo soco waa la sugayaa marka waxay sameeyso Trump waxa uu leeyahay talaabo ma qaadi kartaan xagee gobolka bariga dhexe u socda saacadaha soo socda waa saacado kala goyso wax badan lagu ogaan doono soo dhawaada si aad xogtan iyo warar kale oo gobolka bariga dhexe taabanaya aad u heshaan YouTube kan subscribe saar oo ha ilmaamina aad baad u mahadsantiin